أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كحديرياشا دقيسياشا راديو سيتي سوداد sidoo kale halkan waxaan ka salaamayaa ku soo dhaweynaya martida aad qaaliga oo kala ah Yuusuf Cali oo garbaciisa ku sugan iyo Cali Maxamed oo Holland jooga iyo Cilmi Miguel oo Belgium jooga ku soo dhawaada dhamaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. idinkana sidoo kale waxaan caawa halkan idinku casumay amaba aynu baaqay waxa weeyaan in aan idka wareysto dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmooyinkan saddexdan degmood Soomaalida loogu codeynayay ee maanta hadana leeydi loogama codeyn karo iyo sidoo kale shan degmood oo kale lagu kordaray kadib 3 sano ilaa 4 sano xasuuqi ka dhacayay saddexda magaalood saddexda degmood han ilaahdee oo waxyaabo fara badan geystay oo dhibaatooyinkiisu aad u fara badnaa baan maanta ilaa iyo shalay aan arkaynaa mudaharaadyo aad u waaweyn oo mataqaanaay loo baxay dibadda oo la diidan yahay waxyaabaha halka ka dhacaya waayo waxay noqotay oo la yiraahdo saddexda degmood iyo shanta degmood ee kalaba inaynan u codeyneynin Soomaalida. taas baana sababtay ahayd mudaharaadyadaas. waxaan jeclahay inaan ka wareysto oo ugu horeysiiyay walaalkay Yuusuf Cali oo ku sugan garbaciisa ku soo dhawo in adeer oo nooga waran waxyaabaha mudaharaadyadaas sababay saddexda degmood iyo shanta dambe ee la xijiyayba loo yiri kama codeynayaan dhulka Soomaalida. marka hore waan salaamay wareysigana waan soo dhaweynaya. marka hore waxa weeyaan way jirtay arintan in lagu daro kilalka shanaad oo laga codeeyo saddexda magaalo ay rahan mid boqorku ku dhawaaqay warqadna way ka soo baxday. intay taasi ayna bixinay ku dhawaaqan uuna imanin waxa jirtay qola halkan noo timaday oo gabadh ay hogaaminaysay oo ka socoto dowladda federaalka saddexda magaalo oo wada martay ay ka qaaday. marka waxay tiri waxa lagu xukumayaa dadkan aftintaas ay maanta bixiyeen halkii ay ku darto cid maaragtay dowladda oo hadalkiiba halka ku dara la yiraahdana kuma soconayso
aftinta dadka unbaa dadkan lagu xukumay rabitaankoodana meeshay rabaan baa lagu dari bay tiri kadib sidii aftintii baan ku bixinay annagu inaan dad muwaadiniin soomaaliya aan nahay dowlad deegaanka soomaalida inaan ku jirno dad soomaali oo qowmiyad kale anfar ay dhex aalin inaan nahay dhulkan aan joogno inaan annagu iska leenahay wax kastaan u sheegnay dhibaatooyinkan haysto oo dhan baan u sheegnay in maalin kasta 24 saacadood aan dhimano oonana dhaco xoolaha iyaga la haysto wax kastaba waan u sheegnay sidii bay nagaga tagtay kadib waxaan noo timiday arrinkan ah inaan lagu daray doorashooyinkii 3 magaalo dowlad deegaanka soomaalida kadib markay sitaas dhacday arrintaas waa arrin hagaagsan annagoo lesan u sugaynay aan kusii socdo halka iga hore annagoo tiishii u sugaynay ayay dhawaan nagu soo laabantay waa laga laamay go-aankii doorashooyinku ha ka dhacaan dowlad deegaanka soomaalida 3 magaalo halkaada ka qayb galayaan tahay waa laga laamay 8 degmo oo soomaalidu iska leedahay iyaaba doorasho codbixinada ka dhacaysay ka tirahdaba meeshii kasoo baxday marka hadda waxaa keenay inay degmooyinka kaleeto la soo gobolka oo dhan ama la deegaankuba uu mudaharaado waxaa keentay in Soomaali ay iska leedahay oo cidka ku haysatay aynay jirin oo iyadu iska degan tahay sababta loo yiri doorasho kama dhacayso darteed baa keentay inay degmooyinka la mudaharaado waxay jiraan kuwa badan oo mudaharaadayo oo weli aan mudaharaadin oo sii soconaya waana istiicaniga ila tahay waayo dadkan haddii xuquuqdooda loo ogolaanaynin dee Ethiopian caadi ah ay leeyihiin inay xuquuqdooda u dhacsan lahaayeen dadkan de hadda tabaabushiga galayaan waaye maxaad inaad baaq u diraysaa Soomaali iyo ciise weyn oo dhan Soomaali oo dhan ku horta baaq waxaan u dirayaa maanta ciise kaliya ma taagno Soomaali bay taagantahay horta ilaahay kuwa ismaqlaana Allah naga dhiga maanta waa ismaqasheen ilaahay baa kuwa ismaqla naga dhigaya dadaalka maanta aad dawladan ku jira harjoojinina wada mudaharaadada anfar maanta waa iyadoo mudaharaad yar oo bilaa macna samaysay oo idaha yar joojisay waxa doorashadii nanaga joojiyay anaga degmooyinkeennii lagu joojiyay doorasho inay ka dhicin ma anaga ka liidanay annaga waxaan ololaheena aan mudaharaadeen waxaan wadno ilaahay iyakana kuwa Soomaalida ee garabkeena maanta dugsiga dhibaatada marka hore ciise u bay haysanayay maantana Soomaaliya dhan bay gaadhay kuwa na garab joogtay sida ay loo garab joogsadeen anaguna u garab taaganahay meel kastoo degmada Soomaaliya waxaan ogan lahaa xaqaaga rido xaq soo xorriyadu qofka iska ay dhibto haysato in baa keenay dadka hooyada in la gacanta looga dhiibo maahan iliga maanta misaanta ilaahayna naga garab jiro sina wadan leeyahay aan arifka dadka ku dhaaqdan aad iyo aad baad mahadsan tahay naadeer sida wanaagsan ee noo soo siisay macluumaadka halkaas iyo waxyaabaha ka dhacaya insha Allah Allah ini garab galaan ilaahay annaguna ni garab joognaa Allah ni garab jooga saan u wada halkaygana baaq waxay ka helayaan insha Allah in ay sidaa ugu jiraan wuxun baa insha Allah idin ka soo bixi doonaa walaalka Cali oo soo dhawow waxaan jeclaystay inaan bal ka wareysto dhibaatooyinka ugu dambeeyay hadda ka dhacayay 3 magaalo markii hore inay ka codeeyaan ay ahayd degmooyinka Soomaalida ama gobolka shanaada Soomaalida ah haddana leeyri 5 degmo oo kale ayaa waliba lagu sii kor darayaa oo leeyahay 8 degmo isku noqonayaan kuwa aan ka codeynaynin degmooyinka Soomaalida ah annagoo arkayna waqtiyadan dambe in mudaharaadyo aad u waaweyn ay ka socdaan 5 degmoodba iyaga oo doonayay inay codeeyaan magaalooyinkana xasuuqii faraha badnaa ay soo gaaray annagoo ogeyn dhibaatooyinka faraha badnaa loo geystay annagoo ogeyn waxyaabo fara badan inay iska bedelayeen markii hore la hoos geeyay 3 degmood in ay Soomaalida u codeeyaan haddana lagala noqdo waliba 5 degmood oo kale lagu kor daray oo la yiri 8 degmoodba uma codeynayaan Soomaali bal arrinkaas hadda isku taagtid oo wax yar nooga tataabatid Caliyo aad baan ku salaamay su'aad dhamaan radio city soo gaarna taxanayaasha ku taxan waan salaamayaa walaha halkan martida ku aanaya kan aad baan salaamay cilmi iyo Yusuf salaamteeda ka bacdi su'aashaadii weydiisay hadaan u noqdo runahaan sida aad soo sheegtay waan Yusuf walkeen uu sheegay dhulkan 3 degmo xaqdarra loogu daray marka hore dawladii hore dhacday Cabdi Ilay ayaa xaqdarra ugu dartay iyo rag badan oo kulli
deegaanka ka soo jeeday gobolka City ka soo jeeday adoo isku geeyo dhamaan dadkii markaasi xukunka hayay ee Cabdi Ilay la shaqeynayay ayaa degmooyinka xaq darro ku bixiyay dhibaato badan baa ka taagnay in muddo ah ilaa ay hadda dhibaatadii sidii u taagan tahay dadka in la barakiciyo xoolahooda maaragtay mar walba laga dhameeyo si ay u guuraan ayay canfari ku tala gashay ugu dambeyntii waqti dhow waxaa yimiday wafdi sida uu Yuusuf sheegay wafdi ka socdo in heer federaal oo iyagu u xirsaaran doorashooyinka markii ay halkan eegeen dhulkan dhul dhibaato mar walba ka jirta ay noqotay ay arkeen waxay yiraahdeen bal meeshani meelaha ay iyagu ay dadkii doorashooyinka diyaarinayay ay yihiin waxay yiraahdeen xaqiiqdii in aan ogaano dhibaatada meeshan ka taagan mar walba dadka ku nool waayo sida darteed ay u yimaadeen dadkii maaragtay dhulka deganaa ee ku noolaa saddex degmo marka la leeyahay dhulka waa dhul aad u ballaaran oo noqonaya ilaa 300 ilaa 400 kilomitir noqonaya dhulka inta hal lacag cid kale oo aan Soomaaliya ama Soomaaliya ahayn oo ku nool ma jirto kabacdi waxay yiraahdeen saddexda degmo iyo dhulka inta hal lacag waxay ka codeynayaan doorashada soo socoto dhulka Soomaalida ay ka codeynayaan sidiiba ayay la isla qaatay warqad qoraal ay soo gudbiyeen boordigii ay ku soo dajiyeen in degmooyinkaasi raacayaan dhulka Soomaalida ay raaci doonaan ay doorashada ka qayb gali doonaan ayaa la soo bandhigay arrintii oo sidii loo og yahay ayaa waxaa dhacday in banaanbax iyo xoogaa dacwado ay ka gudbiyeen kiilka cafarta banaanbaxina ay sameeyeen banaanbixii ay sameeyeen daraadeed ayaan arrintan iminka hadda timiday ee la leeyahay saddexdii degmo ee marka hore la isku haystay ee la ogolaaday in ay dib ay uga qayb galaan dhulka Soomaalida codkoodana uga dhiibtaan loo qoondeeyay ayaa haddana waxaa dhacday in la yiraahdo saddexdii iyo shan kala safe maaha oo dhulkaasi dhul namada maaha dhul doorasho ka dhici kartana maaha la yiraahdo oo xaq darro haddana dowladii federaalka ay ku tallaabsatay iyadoo marka horeba dadkani dhibaatooyin loo geysanayay xoolo dhaqato ay hayeen dadkani awood iyo inay ciidan dhan oo canfariilada ay isaga celiyaan aan haysan mar walba san loo gumaaday si wanaagsan hadalkaaga waxa iga soo dhaxbaxay saddexdan magaalood markan hore waxa la yiri Soomaalida dhulkooda ka codeynayaan kadibna mudaharaadadii cafartu ay sameeyeen iyaaba la yiri saddexdii iyo shan kalaba waxa ay kama codeynayaan dhulka Soomaalida marka mushkiladan meesha dhacday yani waa mudaharaadka waxa keenay baan leeyahay mudaharaadkan haday tahay marka ma meeshan qaanuun ma jira miya oo dadka kala saaraya oo qof kasta mudaharaad baxaba xaqiiqiinta laga qaado waliba xuquuq kale oo lahaana lagu kordaraya miya waxa weeyaan su'aaday horta wax walba horta waa la iska arkayaa dowladda federaalka dowladda dhexe aan idhaahdo mar walba dhibaatada dadka haysato loo geysanayo way ogaayeen shalay markii dhulka xaqdarro lagu bixinayay dowladii hore ee Soomaalida ee Cabdi Ilay uu watay ay xaqdarrada ku bixiyeen dowladdan federaalku isku ogaayeen Ethiopia mar walba dadka Soomaalida si xun bay u dhaqantaa runtii waxa sababta ay arrintan ay uga noqotayna garan mayno naadkii marka hore u timid dadkani ee doorashooyinka iyadu wixii saarneyd ba maantana warqada soo gudbiso tili dhulkaasi doorasho kama dhacayso tili saddexdii degmo iyo shan degmo kala dul inta lacag oo 500 oo kilomitir ilaa 400 oo kilomitir gaarayo in ay tiraahdo doorasho kama dhacayso dadkii ku noolaa dhulka deganaa ee awalba doorashada ka qayb gali jir saddex degmo halkan iska dhigtay laakiin shantii kale ee degmo in la yiraahdo doorasho kama dhacayso oo lagama codeyn karo in la yiraahdo arrintaasi arrin xadgudub ay noqotay oo bareer ah oo aan geed loogu soo gaban canfari ama ha banaan baxdo ama ha diido ama warqad ha qorato soo doonta ha dhacdo canfari shalay waxay ka hadlaysay haday ay ka dacwinaysay ay banaan bax samaysay waxay ka hadlaysay saddexdii degmay ee anigu aan lahaa ay iyadu ku horaba xaqdarrada ku haysatay sidee baa dhul Soomaali uga codeynayaan laakiin waxa la yiri nin farlisi far labaad ba maaragtay ayuu boodaa la yiri runtii anigu waxaan u arkayaa
intan kalena hadiyad looga dhigay canfar amba looga dhigay hadiyad in dee la yidhahdo dhulkani dhul laga codayn karaba maaha waa dhul goob dagaal dadka ku noola hadhowta hore waxaa rabaa in laga barakiciyo oo la yidhaahdo dhulkani waa dhul canfarna sheegan karta maaha soomaalina sheegan karaan maaha waa dhul dawladda dhexe ay leedahay si ujeedada ay ka qabaanna ana saasay la tahay doorashadii ka dambeeya haddii laga hadli waayo lagana diidin waayo arrintaana laga hortegi waayo sida ay dadka kulka afarta ugu hortegi arrintaas waana ka baxay waad mahadsan tahay walaalka cali waxaad u aragtaa hadiiba laga hadli waayo hadda inta ay dhowdahay dhul kalena in loogu sii dari karo oo ama degmooyin kaleba xitaa loo magacaabi karo dadka canfarta ah marka hadda ay ku sugan tahay baad leedahay in laga hadlo soo ma si wanaagsan waxaan intaanad baaqaaga aan kugu soo noqonin aan u tabinayaa su-aasha walaalkay cilmi migil kusoo dhawow bal adna iskortaag sidaad u aragtid arrinkaas iyo banaanbaxyadaas maanta ka soconaya magaalooyinkaas gobolka city ka tirsan iyo dhibaatooyinkaas soo gaadhay dadkaas iyo dhulkaa laleeyahay kamaba codayn kartiin dhulka soomaalida bal wax yar adiguna nooga faahfaahi halkaas waad mahadsantihiin dhammaantiin radio city soo gaadh bulshada inagu xidhnay dhammaantood aad baan u salaamayaa walaalahayga barnaamijka ku jirana waan salaamayaa waxa weeyi horta mudaharaadadu waxa ay kamid tahay siyaabaha oo maad aragtaanay dhawaaqa loo tabiyo aba maad aragta waxay kamid tahay halganka qaybo gaarkooda oo loo yaqaano la voix de sans voix yani waxa weeyi dadka aanan hadli karayn inaad u hadashid oo maad aragtaanay dadka maanta dhown yar iyo dayn lagu caburinayo deegaanadooda xoog lagaga haysto inay maanta u mudaharaadaan degmooyinkii kale waxa aan leeyahay waa arrin aad iyo aad looga baahnaa mar hore inay sameeyaan hadday mar hore samayn lahayeen halkan maanta ay taagan tahay arrinkuma taagnaadeen wax badan baa isbedeli lahaa marka waxa weyn mudaharaadadu waxay maad aragtaanay ka caawin doontaa inay xaqooda usoo celiso iyagoona maad aragtaanay hub qaadan iyagoona maad aragtaanay dhul aan baabiin mudaharaadka wuxuu kamid yahay siyaabaha loo tabiyo fikirkooga iyo maad aragtaanay waxyaalaha ay dadku ay diidan yihiin ayay kamid tahay marka mudaharaadada nabadaysan ay sameeyeen aad baan ugu soo dhaweynayaa waxaan ka leeyahayna oo maad aragtaanay faraan u dirayana in mudaharaadada ay wadaan ay xoojiyaan ilaa xaqooga ay ka helayaan mar horaa looga baahna maanta 3 sano ayuu socdaa dhibaatada ka socota dhul yar iyo dayn waan la soconaa kor baan kala soconaa hoos baan kala soconaa dhulka deegaanadaasi dhul yar iyo dayn aan u naqaano anagu wax weeyaan khasaaro fara badan baa soo gaaray maati fara badan baa lagu laayay caruur fara badan oo 17 jir 18 jir 20 jir ayaa ku dhinto sida loo laayay maartaan xoolaha sida xoolahana loo aasay oo maad aragtaanay dayan lagu iloobay dadka dadka halka degan hadii ay maad aragtaanay Ethioopiaanku ay ka dhigteen dad bila aadan aanan hayn oo xoolo oo sida xoolaha u dhiman kara loona aasi karo taasde waxay maad aragtaanay sharaf darro ay ku tahay reerka ay ka soo jeedaan magaca Ciise weyne sita maanta maad aragtaanay adduunka meel walba jooga wadan walba jooga awood iyo karaamad iyo cilmi ilaahay siiyay sharaf darro ku tahay maatidoodii maati kamida oo lagu gumaadayo xaq darro oo cilmi lagu maagayo hub lagu gumaadayo iyaguna maad aragtaanay markhaati ay ka yihiin oo maad aragtaanay aan ka dhigana sheeko dhowr intaaba ku dhimatay Allah ha u naxariisto dhowr intaaba lagu dilay Allah dhaawac baa sheekan ka dhigan wardad baa maatiba babaayis meeshani dawlad haday jirto dawladda Ethiopia waxay maad aragtaanay xeer u leedahay afti dhuka inay ka qaado horey bay u samaysay waa la ansixiyay sidii loo ansixiyay in maad aragtaan dawladdu ay application weeyaan ay u maad aragtaanay dabaqdo haday dawladnimo meesha ka jirto haday dawladnimo ka jirina ciisaha waxa maad aragtaanay u gudboon inay xeerkooga iyagu maad wixii xaqooga gacmooga ay ku qaataan ba u gudbaniyo dawladda ka buuxaan federaalka ku jiraan baarlamaanka maad aragtaan federaalka ku jiraan degmooyinka baarlamaanadooda ku jiraan saraakiil bay ka yihiin wasiiray ka yihiin maxay qabanayaan mise dadkaasi waxay maad aragtaan ay noqdeen dad loo mooyaano aan ka tirsanin dhiigga ciisa waan la kala cadeeyay sheekada markaan waxaan leeyahay sidaa maanta aad u damqateen iyana loo joojin mudaharaadkaas haddiina waad inaad weydiisatiin dawladda federaalka ee xasuuqa ka wada dhulkaas
waana ka baxa si wanaagsan waxaan hadalkaaga iga soo dhex baxay inay xaqdarri meeshaasi ay jirto oo wixii meeshan dawladnimo ay ka baxdayba waxay ballanta ku qaadayba ay ka baxayso markiiba oo qof uu dibadda u baxaba oo laleeyahy weliba intii hore maan in kalaa lagu kordarayaa ma u aragtaa cilmiyow inay mudaaharaadkaas u dhanaayeen soomaalida oo dhan mise gobolka situn baa laga baxay wallahi soomaali maad aragtaanay u dhan manu arag waxaan xasuusanaa degmooyinkii maad aragtaanay dhulka soomaalida ku yaalay mar maad aragtaanay qoramadu ay weerartay xasuuqa laga geystay in maad aragtaanay ciise uu sara kacay uu ka mudaharaaday waan ogin anaku dhibaatooyinka maad aragtaanay iyaga ka qabsaday inta badan waan ka damqanaa waan usura joogsanaa waxa weyan waxaa looga baahan yahay maad aragtaanay degaanka maad aragtaanay iyo maamuladan soomaalidu inay isgarab taagaan maanta walaalahood maanta hadday isgarab taagi waayaan beritoole iyagana maad aragtaanay sidaas leeg baa qabsan doontaa lasina garab taagi doono waxa weeyaan dhulkani waa dhul magac soomaaliyeed sita wey ciise horta waa aad baan uga xumahay calankan soomaali galbeed la idhaahdo dadkii soo ritay ee sameeyey wey maantana iyagaa ku hoos dulma aad baan uga xumahay marka waxa weya soomaali waxaa looga baahan yahay garabku walaalkaa kaaga baahan yahay sideeda haddaad aad u gudan weydid adigana maalintaada inuu walaalkaa ku garab joogsanayn baad maad aragtaanay ogaan doontaa insha allah waana ka baxa si wanaagsan aniga oo intaan u gudbin cali aniga oo adiga ku weydiinayo waxaad baaq u diraysid soomaali iyo ciise weyne inta ka tirag la egyihiin qurba joog iyo qulqul joog intaba baaqaad u diraysid baan jeclaan lahaa inaan maqlo walaalkay cilmi kusoo dhawow horta ilaahay waxsan hanaga dhawaajiyo waad mahadsan tahay fursadda aad na siisay rumaantii baaq baan u sidaa aan rabaynay inaan maad aragtaanay tabiyo waxaan nasiib u yeelanay inay radio city sogaar ay fursadaana siiso aan ku hadalno uguna gudbino maad aragtaanay dadka maad aragtaanay dhiig iyo dhuux iyo maad aragtaanay wada dhalashada aan wadaagno inaan u tabiyo marka waxa weeyi fariin baan aan u sidaa waxaan leeyahay adduunku waxaa lagu socdaa maad aragtaanay maanta waxaa socda waktigii qalinka iyo politic strategic wax la yidhahdaa socda hadday dadku maskaxda saliimka ay shaqaysiin waayaan dhibaatooyin fara badan baa mar walba u yimaadaan dhulkan degaanada aan deganahay waxaa la yidhi waxay ku xidhan yihiin kelinka soomaalida ayaa maamulkooga haysaa la yidhi maamulka degaanka soomaalida waxaan ka nahay ra-iisul wasaare madaxweyne ku-xigeen iyo waxaan ka nahay intaasoo xildhibaan intaasoo wasiir iyo intaasoo saraakiil baan ku leenahay waxaan la yaabanahay oon mar horena u iri war miyaa la waaye baan idhi dhalinyar ciise oo lagu daro new booliska 20,000 oo dhalinyar ciise oo lagu daro new booliska oo amniga dhulkooda iyaga sugta waxaan ognahay ogaadeenku 40,000 oo dhalinyar ogaadeena inay madartan new booliska ugu jirto degaan wal oo iyagu ay degan yihiin hadday qaraf yar ka dhacdo 40,000 oo doolay in la geeyo oo madartan amnigooda sugan weli madartan waxa ilaa hadda la yaabanahay waddaniyada ciisaha ee degaanada degan ee dhulkooda maanta awoodda lagu haysto iyo dulanka lagu haysto miyaa la waayaa 20,000 oo dhalinyar oo ciisaha oo new booliska in la sameeyo oo degaanadooda la dhigo siday amnigooda u sugaan cid ku duulamani laakiin amniga dhulka ay sugaan cid bay ku soo xadgudubtana xaqooga ay mariyaan waxa inaa isdifaacdid oo maaragta naftaada iyo dhulkaaga iyo dhiigaaga aad difaacdid waa min al-diin weeyaan diinta ayaa amraysa inaad dad ku duushid oo gardara ku doonatid ayaa xaaraan laakiin dhulkaaga iyo dhiigaaga iyo cirdigaaga inaad difaacdid diinta ayaa ku amraysa marka anu waxaan leeyahay oo mar walba ugu baaqaya war booliska new booliska ka caradaysiin inaad ku biirtiin waxa inay noqon doontaa ilaa ay shaca in lagu marmo ay shaca soo duubta afka kuma hayso ilaa ay shaca in lagu marmo ayaa madartanay inii sababi doontaa maanta dawir iyo deyn 3 sano ay socoto ee lagu daawaday waxay keentay deegaano kale in maartana carabka lagu jiido waxa soo socota in maartana dukan caloosha la yiraahdo carabka lagu jiido haddaad inka aad tashan weydid oo isku qalbi fuudaan weydid oo waxa weey walaalnimadii iyo wada dhalashadii iyo dhiigii maanta aan garan weyno oo wixii noo roon iyo wixii noo xun aan kala saari weyno oo sidii noo mala aan u dhaqaaqi weyno oo madartaanay ugaaska iyaga iyo maladiisa iyo madartaanay sida
aan u daba joogsan weyno waxaad iisoo ogaanaysiin in ciise dambe la doodooni doono marka anu waxaan leeyahay war ciidanka new booliska ku biira sababtaad ugu biiraysiina waa amniga dulkiina bari cid inay difaaci doonto ma jirto drace baa la inagu miidhayaa waa drace federaal iyo drace dawladeed baa la inii soo xidhanayaa adiguna shacab baa tahay oo maad aragtaan shacab baad isku difaacaysaa siday gardaraba u dhamaato adiguna draceka gaad oo wixii drace kugu miidhayo drace isaga difaac maxaad shacab ahaan iskugu difaaci drace isku difaac dhulkaaga difaaco war waxaad kala laadihiin maad aragtaan sida aad ula qaybsan lahaydeen saama qaybsiga dhulka Ethiopia waa degantiin waa dhulkiina ilaahay baan idin saama qaybsigana xaqiini weyn xaqiina doonta reerka qurahaata ee saama qaybsiga aan si fiican uga qayb galan waxa maxay naga sii kii siyaasi noqdo maad aragtaan meel sare inay noqdo nin damaasuu noqonay oo dadkiisa dad iyo dhiigiisaba iloobay aw dadkii dhiigga lahaa iyo damiirka la maxaa qaatay war-iiso waxaan leeyahay baraaruga inta ay goorgoor tahay cidna ku duulay inima lid cidna laayo inima lid laakiin naftiina iyo dulkiina inaad difaacdaan diinta inay amraysa marka baaqaan u diray waxay tahay in lagu biiro new booliska wallahi faa'iido badan ba inay noqon doontaa waad arki doontiin maalinta aad garataan inaad ciidanka 20 kun oo dhalinyaro aad ku darsataan faa'iido inay soo baxdo waad arki doontiin waxaa kale oo maad aragtaan ay baaq u diray raggan shaararka dawladeed sitay ee magaca ciise ku fariista kuraasida ilaa maad aragtaan iskamay fariisteen magaca ciise iyo shacab ciise ku fariisteen ee maantana iska indhatiraya dhibaatada ummadooda lagu hayo kursigan aad ku fadhidid ummadan la dhibaataynayo dhiigooda dulanka lagu maad aragtaan daadinaya ayaa ini doorto halkaa iyagaa ini dhigay haddaanad waxba u gabaneyn haddaanad noqonayn afkii u hadlayay waxa halkaa lagu dhigta waxay ahayd afkii u hadlayay inaad noqotid ila iyagu uma hadli karaan halkaa ma joogsan karaan waxay ku doorteen inaad adigu u hadashid afkii aan u hadlayn haddaan noqonayn war walaal meesha isaga tag oo ummad u hadasha ciise meesha hala dhigto haddii aad maad aragtaan garab joogsanayn oo dhiigga ummadda ciise ee tolkaayo maad aragtaan kula dhashay aanad damiirkaagu ka danqanayn waad isaga tag taariikh xumaha kaga tegi meel xun ha u joogsan isaga tag ma karayo oo kartidaa ma lihi waxaad iigu doorteen khalad bay ahayd waan iska dhigada dhammaantiin baan wada sheegaya nina magaciisa hadal qaadeen ragga ka ugu sarreeya ka ugu hooseeya kuraasida fadhi iskaga taga waxay ciise iniin doorteen inaad u hadashiin inaad u doodiin saami qaybsiga dawladda federaalka iyo dawladda hoosena inaad xaqooga u soo ridiin inaguna waxaad keenteen jabadiina in anigu maaragtaan aad buuxsataan in afarta qof ee aad dhashay maad aragtaan aqal maaragtaan qabow iyo galaaseer iyo biyo iyo wax walba aad u dhigtid galbeedna maad aragtaan ilmaha soo dhashay maanta 13 jira ay nolosha ku horeyso gardaro lagu laayo maad aragtaan lagu qadar jabiyo oo laga dhigo sidii ilmo maad aragtaan sidii xoolaha inuu dhinto laga dhigo waana ayaan daraan leeyahay fariintaas intaadan insha allah ma aragtaan doonay inaan gudbiyo waana mahadsantihiin intaad isiiseen fursadda aan ku hadlo si wanaagsan walaalkay cilmi migil aad iyo aad baad mahadsan tahay insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu baaqaasi u gaadho dadka walaalihiina ee ku dhiban gobolka city walaalkay cali adoon mar labaad ku soo noqonayo waxaan jeclaysan lahaa inaan adigana waxa weeyaan baaqaagi inaad adiguna halkan ka dirsid hadduu ilaahay yidhaaho ما شاء الله وسلامتين دمانتين mar labaadna city soo gaad radio city soo gaad waa salaamaya horta cilmi baa dhameeyey wixii aan u dhan lahaaba oo wax haray ma jirto runtii waxyaabihii aan lahaa inaan ku canaanta rabay baaq inaan dirana aan rabay isagaa intuu badan yidha laakiin waxun baan ku kordhinayaa horta ugu horreyn aan waxaan la hadlayaa beesha ciisaan la hadlaya meel walbay joogto qurba joog iyo qolqol joog ayaan la hadlayaa oon leeyahay dhibaatada maanta taagan ee galbeedka city ka taagan waa mid muddo soo socotay intaasoo geesi ah ku dhintay intaasoo hooyaa ku gablantay intaasoo xoolaa lagu qaatay maanta dhulka ciisaha waa 5 qaybood baa laga dhigay anigu
kolkaan saa u eego waxaan isleeyahay ma wax isticmaalkii dowladihii hore dhulka soo maray ay ciise u qaybiyeen baa marka hore ciise waxaa loo kala qaybiyey Djibouti iyo Somaliland baa loo kala qaybiyey ama Soomaaliya loo qaybiyey maantana 30 sano dambana saddex baa loo qaybiyey qayb iyo xukun ayaa laga dhigay maanta ciise 5 dowladood amba 5 qaybood buu kala baxay qayb lagu daray Soomaalida qayb la dhexgeeyay federalism laga dhigay oo diridaba ah iyo qayb afar lagu daray iyo inta Somaliland degan iyo inta Djibouti degan 5 buu ciise ayuu noqday waa 5 xukun oo kala gooni ah oo kala mabda ah kii anfarta lagu daray waa kan dhibaatana baa haysato kii Soomaalida lagu daray dhulka Soomaalida la hoos geeyay ama dhulka Soomaalida leeyay Soomaalida wadtiin leeyina dhulka inta lacag gobolka inta lacag oo intaasoo gobol noqon lahaa oo annaga noo dhaxayso magaalada Jigjiga iyo magaalada Dirdaba magaalada Shiniile waxa dhinac aan ka galaa Soomaali ahaan markay noqoto dambal meesha la yiri reerka Galmudug aan wada deganahay halka ayaan Soomaali soo gaarnaa laakiin Jigjiga iyo Soomaali kale iyo ogaadin meel soo gaarno oo maanta ciise soo gaaray ma jirto kolka horba gardaro ayaa halka loo geeyay in ciise oo wixii ku soo daalay inuu guday geeyo guday markii dambana Jigjiga la keeno dhibaatada inta soo socotay iyo ilduufka inta lacag inta soo muddo soo socotay waxa weeyaan anu xaslahay ciise ilduufay ragga shalay ciise hadduu damiir leeyahay amba garasho leeyahay wax fahmayo raggii dhulka shalay bixiyay dawladii cabdiile maanta xabsi ku jira in ogaadeen oo dawladdu dambi ka galay ummad Soomaaliyeed dambi buu ka galay dadkii meesha ku noolaa oo dhan dambi buu ka galay intii tuugahay ee isaga ku hoos nooleed oo dhanna inta maanta kuwa ciise maanta way joogaan amba wadanka ka baxaan amba wadanka dhex joogaan raggii shalay wax saxay way joogaan ciise waxba ka muuqdan anaga saan arkayo raggaasi halka bay fadhiyaan oo ay tuun waaweyn yihiin oo dhibaatadii ciise u geysteenna maanta intaasoo rag baa ku dhintay geesiyaala ku dhintay oo lagu dilay maaragtay gardarro lagu dilay dhiigga iyo dhibaatada taagan iyo barakaca taagan raggaasa maanta ka mas-uula tii shalay nagu dhacday cabdi ilay nii geystay cabdi ilay markuu u joogay intaasoo dada may dhiban dad baa maaragtay maanta faanfaanayoo leh cagjar ku hayo cagjar inta u yimid inta ciise ka dhimatay weligeed kama dhiman mustafa cagjar markuu meesha soo fuulay inta ciise ka dhimatay weligeed kama dhiman cabdi ilay marka uu joogay ciise san looma gumaadin oo san looma dilin haddana isagaa saxoo bixiyey sudan waa ku bixiyo anigu waxaan leeyahay ragga ku jiro maamulka aan waxaan baaq xooga u dirayaa ragga ka soo jeedo beesha ciise ee dawladda federaalka ee dawladda dhexe ku jiro ee maamulka ka haya meelo sare ka haystaan magaalada Dirdaba ninka xakumo waa maayirka magaalada Dirdaba ninka xakumo waa ciise oo nin beesha ciise ka soo jeeda weeyaan madaxweyne ku-xigeenku waa ciise wasiirada maanta kilka shanaad intaas oo wasiiray leeyihiin baarlamaanka intaas ay jiraan degmooyinka ee maanta gobolka City 9 degmo oo gobolka City ka kooban yahay intaasoo ragoo ciise maamulo intaasoo dhanba dhibaatada ciise ku dhacaysa ka mas-uula dhimashada iyo dhiigga daadanaysa ka mas-uula iyo marka ay nabad ku seexdaan halkanna hooye ku gablamayso ee wiilkeedii ku weyday ee xoolaheedii ku weyday ee dhulkeedii ku weyday berritooda seebay noqonaysaa anigu waxaan leeyahay raggaasi gaf bay ciise ka galeen raggaa koorarka waaweyne ee qandaraasyada Jigjiga ka qaadanaya kuwa qandaraasyada qaato iyo kuwa wasiirada waxaan leeyahay ciisow haddii ay waxba nii qabanaynin halkii ugu dambaysa maanta wax taagan tahay waa la isxisaabin waqti baa iman doono nin kasta la xisaabin doono dadkaa ku dhintay gacanta ka gardaran ay dishay markhaatiga ay ka yihiin waa la isku xisaabin doonaa waqtigu sidaa ahaan maayo kartidii iyo aqoontii iyo maaragtay heerku ciise lahaa waxaa baabi'iyey dabaqoodhi annagu waxaan idhahnaa dabaqoodhi baa jiro dabaqoodhi baa cafarta la shaqeeyo
masaakiin yaroo haruur yar la siiyo dabaqoodhi aan ku sheegnaa dabaqoodhiga u waaweyn waa ragga kuraashada ku fadhiya ciise raggaasi haddii aad wax ka qaban weydaan shacabka ciisahan la hadlaya meesha doontin jooga ragga hadday wax ka qaban weydaan ciise tallaabo ma qaaday kow ta ugu horeyso laba waxaan baaq u dirayaa in dadka degmooyinka ciisaha sagaalkaa degmo joogo dhammaantood waa inay banaanbaxaan banaanbax nabadaysan ugu horeyn banaanbax nabadaysan waa inay sameeyaan ilaa wixii ay rabaan loo soo celinayo xaqoogii helayaan ciise maanta hadduu iska xorin waayo arrintan maanta taagan iska xorin waayo israaci waayo waxa weya nin walba halkuu joogaa looga iman walkii loo xili la soo qoysaa layidhi waxaan kaloon baaq u dirayaa odayaasha beesha ciise hogaamiyaha ogaaska war ogaaska iyo odayaasha waxaa la oran jiray marka ay dib iyo dhibaata dhacdo amba wax dhacaano dadku israacaan ay wax sameeyaan ayaa la oran jiray ogaasow qof lasoo dilo amba qof lasoo dhaawaco amba qof maaragtay gabadh iyo nin ay isqabtaan haddii la yidhahdo ogaasow adug ka tari la yidhaahdo dee ma soconayso samcaddii ogaaska iyo faaleerkii ogaasku lahaabaan dilay ka dhigan tahay marka ogaasku waa inuu noqdo kii isagu ogaasku muxuu ogaasku yahay ogaasku waa nabad odayaashu waa nabad maalintay meel wax marayso ayay amar bixiyaan ay joogshada yidhaahdeen laakiin waxaa laga sugayaa iyaku in amar bixiyaan shacabkii taasina waan kasoo horjeeda anigu waayo xeerkii iyo dhaqankii aan lahayn iyo waradegii dhul aan ku wada dhimanaynay ayaa lumaya marka laga sugo aabihii nabadda ee ciise ee horkacayay boqorkii in ciise uu lahaa ilaahay baa boqora ilaahay ka soko boqorkii ciise uu lahaa haddii laga sugayo inuu isagu wuxuun amarun laga qaato inuu isagu dawlad la hadlo inuu isagu qof meel lagu dilay ka hadlo inuu isagu awood wax kasoo loo dhiibo raggii awoodoodan qaban lahaana dhammaantoodba ay kuraasta ku fadhiyaan qadaraasada qaadan nin walba fiilaa dhistay taasi ma soconayso maanta laga bilaabaa nin damba iyo ilmo dambe hooyo dambe ooyi mayso annaku haddii aan nahay qurba joog waxa aan karbaashaynaa oo aanan daynayn oo aanan ka harayn raggaa dhintoo dhanba inta kursiga ku fadhidaan weydiinayna anaku waayo sababtoo ah dhiiggaa daadanaya maanta isaga ka mas-uula hadduu yidhahdo kursiga waan ka kacay dadkayga sidan loo geystay hadduu yidhaahdo dee ma soconayso waa bilishaanguul iyo axmaar baa isdilay bur isku dilay waa loo kala saxay dhulkooda waa loo kala saxay nin walba dhulkiisii buu qaatay oromo iyo axmaar baa dhul isku haysto nin walba dhulkiisii buu qabsado awood baa isku sheeganaya dawladda federaalku lama hadlayso waxay doonta haddaa ku samayso dhulkooday ku dhimanayaan si kastaa laga yeelay dhulkaydan ku dhimanna mahayn wax kale ma noqonaysa yidhahda ciisana waa inuu arrintaa ka midoobaa dhammaantood sida u dhan yihiin canug iyo ciroolaba waxaan u rajaynayaa dhammaantood anoo hadalkayga kolley xamaasadda aada ay ii kacsan tahay waxaan leeyahay ciise dhammaan ha israaco annaku ma maqli karno qof ciisaa oo meeshuu doona ha jooge oo ooyaya ma maqli karno qof ciise oo dhibaata haysta ma maqli karno dhiig ciise oo la daadinayo annaku ma maqli karno ninka jecelow ee ku raaxaysanayo waxaan leeyahay adiga ayay hawl ku taallaa waa wax lagaaga dambeeyo kursiga aad ku fadhidi iyo dhibaatadii dhiiggaa daadanayna waa midaan kaaga beeman doono oo taariikhdaa ku qorayso taariikhdaa ku qoray halkaad ka soo jeediy ciddaa tahay waxaa tahayba taariikhdaa ku qori doonto marka hadalkayga waa soo gebagabaynayaa waxaan leeyahay banaanbaxaana arrintaa maanta ciise uu isku raacay ee midnimada ciise maanta ay wax mid naga wada go-on tahay dhammaantay meeshaan doonaan joogno waxaan leeyahay in aad banaanbaxaasi xoojisaan ilaa wixii aada xaq u lahaydeen aada weydeen aada heshaan intaasaan kaga baxay walaashay waana dhammaantiin si wanaagsan baaqyadiinu aada iyo aad bay u wanaagsan yihiin insha allah ilahay waxaan ka rajaynaynaa in ay nabad qab ay ku gaadhaan dadkeena halkaa dhibaatada ay ku haysato halkayga dhinacayga waxa aan baaq u dirayaa dadka dhibaataysan ee halkaas gobolka city ku sugan ee maanta meel walba dhibaatada ay ka haysato
xasuuq baa marka hore loo geystay dadka masaakiinta ah waxa u xigay ina masjid yar dadka isugu ururaan waxa xanuunaa ka dilaacay dhibaatooyin fara badan baa dadka soo gaadhay bilaa biyo bilaa cunto waxaasoo dhan iyagoo adkaystay maanta waxay yidhaahdeen laakiin waan baxaynaa waxaan leeyahay anu baaqaygu yahay dib ha u noqonin haddaad mar soo baxdeen ilaa xaqiina aad ka helisaan xaqiina markaad heshaan iyaad nasan doontaan hana diidina dhibaatooyinka idin soo maray waayo tani bixitaankani dhibaataha u arkina waayo wixii hore inii soo maray iyo xasuuqii hore inii soo maray hooyadii lagu oohiyey ilmihii isagoo gaajoonayo ooyaya seexday aabbihii isagoo iska ilaalinaya lilmada ay lilmadu haddana ka daadanaysay garhkii casaa ee lilmadu qoysay een annagu u jeednay een annagu la danqannay aan la ooynay waxa weeyaan maanta ilaahay baa faraj bixiyey ilaahayna subxaana watacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay casaa shay an takrahuuna fa huwa khayrun lakum waxa aad necabtihiin oo khayr idin labaa jira dagaalkaasi khayr buu idin leeyahay waayo ciise kala daatay waktiyadan dambe oo mid noqon waayaa ku midoobay dhulkiinii oo xaqdari lagu qaatay oo iska daa 3 magaalo 3 degmo 5 degmo kale lagu kordaray iyaad maanta u soo baxdeen xaqiinu idin soo noqonaya waxaan idin leeyahay anu baaqaygu dib ha u noqonina shacbina hadduu u rabo inuu meel gaadho inuu xurriyad gacanta ku qaabsado inuu dhulkiisa qaato oo xaq ku qaato waa inuu habeen u gudo una gaajoodo una haraado intaasaan anu idin leeyahay qurba joogna waxaan leeyahay dadka walaalihiina waa inaad la danqataan waa inaad wax u dirtaan waa inaad garab istaagtaan sida dadka kaleba dadkooda ugu danqanayaan wax ugu qabanayaan ninba yus odhanin kaasi Ethiopia joogaayo waa Ciise kana Soomaaliya joogaa waa Ciise kana waa Djibouti waa Ciise ee waa inuu Ciise mid kan noqdo dhibaatada dadka haysata gobolka City ku sugan dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad baaqa wanaagsan uga soo qayb gasheen eed walaalihiin ugu danqateen dhammaantiin dadkana dhageysanaya xiriirayaasha Radio City soo gaar idinkuna waad mahadsantihiin insha Allah waraysi dambe oo noocyadaas oo kala ah oo khayr wata insha Allah iyo bishaaro wanaagsan ku kulmi doonaa biidna rabbil caalamiin waxaan ka tagayaa dhammaantiin nabadgelyo iyo amaano Allah
Let's go.
Ultimo,